اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. waxaan aad ugu mahad celinaa qof walba mansabkiisa iyo maqaamku ku fadhiyo ka soo qayb galka shirkan ay maanta waqtigooda noo hureen. waxaan rabaa inaan ka hadlo Somali Orthopedic Association taariikhdii ay soo martay iyo wax qabadkii noo suurtagalay sanadkii la soo dhaafay iyo labadii sano ka horeysay oo markii la aasaasay kadib ah. سامود أغنهي أما Somali Orthopedic Association وحلا أساسي جولاي تضبط هذا لبض كون لبعتنية لبضي وحين هيد فكرة كإماتي دخاتي صوماليات وصوبرتي تخصص كالدوان إلفها دبنا وجو صولابتي وطن كودا كدبنا كتشتي إن لبلاو أور يكون مديسينهن دخاتي تلفها صوماليات سي أيجا سيور قبان واختار كودنا وكردو سأوجدان صور بحكم موضوع دكتور سعيد آذن عدي أو دفق أبو سينير سن خاطر تلفا صوماليات أوركا حلي سيهرة لما بكون لبعتني لما بكون لاتي أفر وحود دورتي جودي جالس محمد وهنجري أما قدوميها أوركا هو دكتور سعيد دكتور شكور أو هاي جنرال سكرتري يتيم كلا ولا شغينا دكتور دون دكتور أيوب iyo tirayo kale 2024 doorasho dhacday kadib waxa la doortay guddi cusub oo hogaaminayo Dr. Bashir Indade vision ka marka ururka iyo mission faha qorqaadista aqoonta dhaqaatiirta lafaha iyo wixii la mid ah membership ka ururka kala asaasay ilaa hadda waxa members ka 46 qof guud ahaan dal iyo dibad marka la isku dareen dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed inta ka diiwaan gashan ururka waa 63 qof 63 qof waxay 20 Somaliland iyo koonfur galbeed marka guud ahaan tirada dhaqaatiirta lafaha Soomaaliyeed waxay ku kala sugan yihiin qaybaha kala duwan ee wadanka taasna waxay jawaab u tahay Dr. Saluul oo na weydiisay in dhaqaatiirta lafaha ay u badan yihiin magaalada caasimada dhaqaatiir aqoon sare lehna ay isla waqtigaas joogaan gobolada kala duwan ee wadanka ururku wuxuu aad u saaraa awoodda waxbarashada iyo kor u qaadista علمية دكاترة الفا Soomaaliyeed wuxuu qabtay ururka in ka badan 40 continuous medical education wuxuu qabtay training loo sameeyay dakatirta lafaha iyo medical students ka ama dakatirta general practitioners ka sidoo kale wuxuu qabtay ururka First Somali Orthopedic Association oo dhacay sanadkii la soo dhaafay waqtigan oo kale maantana u taaganahay second orthopedic conference ururku wuxuu si joogto ah u soo dhaweeyaa dhaqaatiirta cusub ee soo barata takhasusyada kala duwan ee lafaha kana imaada adduunyada meel walba ay ku sugan yihiin muqdishona imaada waa sawiro ka mid ah dhaqaatiirtii la soo dhaweeyay ay ururkooda tirsanay sida idin muuqato webinarski uu qabtay ururka 2023 waxay isugu jiraan kuwa aqoon guud ah oo looga faa'iideynayo general practitioners ka iyo kuwa aqoon qoto dheer leh oo ay dhaqaatiirta lafaha dhaxdooda ay isaga faa'iidayeen sidaan hore u sheegnay ururku wuxuu aad xoog u saaraa continuous medical education iyo sare u qaadista aqoonta dhaqaatiirta lafaha ururka sidoo kale wuxuu qabtay dhowr webinar oo live ah waxa kamid ahay Somali Orthopedic Association conference-giisa ugu horeeyay sanadkan dhacay isla hoolkan ka dhacay oo fadhina maanta kiisa labaad waxa ka soo qayb galay shirkaas dad aad u fara badan oo gaaraya ilaa iyo 170 qof ayna kamid ahaayeen dhaqaatiir lafaha Soomaaliyeed dhaqaatiir kala duwan ee associationada wasaaradda caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu soo bandhigay in ka badan 50 presentations ama scientific papers
sidoo kale ururku wuxuu ku qabtay howlka Nova Diagnostic shir kale ama aqoon kororsi kale oo ku saabsanay trauma sida ay muuqato cinwaanada kala duwan ee dhakhaatiirta soo jeediyeen waxaana halkaas lagu guddoonsiiyay in ka badan 50 dhakhtar certificates oo maanta aan daawo doono muuqaalkooda wuxuu qabtay sidoo kale ururka workshop loo qabtay practitionerska general practitionerska lagu soo bandhigay qaabka loo sameeyo jeestooyinka iyo wixii emergency oo la xiriira orthopedics sidoo kale wuxuu u dabaaldegay ururka isla markaasna qabtay shir looga hadlayay trauma day halkaas oo lagu soo bandhigay casharo kala duwan iyo doodo dhaxmaray dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed dhakhaatiirta qaliinka iyo qaybaha kala duwan ee dhakhaatiirta kale waxaan la guddoonsiiyay ka soo qaybgalayaashii in ka badan 60 certificate maanta oo fadhino ururku wuxuu qaban doonaa second orthopedic association si guud marka laga soo tago educationka wuxuu ururka ka shaqeeyaa researchka iyo innovationka waxaa jira maanta lagu soo bandhigi doona halkan research uu sameeyay ururka National Orthopedic Capacity Assessment Survey wuxuuna aad u dhiirigeliyaa kor u qaadista researchka la xiriira orthopedics wuxuu qabtay ururka sidoo kale awareness looga hadlaayo ama lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee waxyaabaha laga aaminsan yahay caadooyinka ama dhaqanka Soomaalida ururku wuxuu xiriir kala duwan la sameeyay ururada kale ee caalamka waxaa maanta dhici doona CME uu ururka la wadaagi doono SICOT si collaborative ah oo ka dhici doona halkan Ilaahay diiraad ururka web page uu leeyahay web page kaas waxaa ka helaysaa taariikhdii ururka waxaa halkaas sidoo kale laga helaa webinarskii dhammaan la soo qabtay intuu ururka jiro oo videos ay muuqaalo iyo conference yadii hore u soo dhacay warbixinadooda sidoo kale page-ka Facebook ururka iyo YouTube-kiis labada waxa ka helay dhammaan waxyaabihii la qabtay intuu ururka jiro ha u badnaadaanba CMEs-ka waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahadceliyo taabageliyaasha mar walba garab taagan ururka dhakhaatiirta lafaha Soomaaliyeed ka shaqeeya qalabka lafaha iyo dawooyinkiisa oo maanta noo suurtageliyay meeshan quruxda badan inaan isugu imaano aan wadaagno aqoontan kala duwan aad u mahadsantiin waxaan aaminsanahay marka sida uu sameeysan yahay qaab dhismeedka jirka bini aadanka haddii xubin ka mid ah ay maqnaatana cilad u yeelanayo in dhakhaatiirta Soomaalida ee lafaha dhammaantood ay isku xiran yihiin xubin walba oo ka maqan ay muhiim u tahay aad u mahadsantiin